halka aad inaga daawanaysaan waa saaxiib film daawadayaal waa salaamantiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa markale barnaamijyadeeni Bollywood ka barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa daawadayaal aktarada caanka ee Kajal Mukhraji Kajal Devgan xidigada shirkadda Bollywood ka ahna gabadha ugu jilinka wanaagsan ee sanadihii sagaashamaadkii haddaba aktaradan ayaa waxay ka muujisay walaac aad ugu weyn caruurteeda kadib markii sanadkii tagay ee 2017 ay gabadha Niza ee 14 jirka ah ay u dirtay dalka dibadiisa waxbarasho waxa ay sheegtay in Niza dalka dibadiisa in loo diro waxa ka dambeeyay seegeeda Ajay Devgan muddo badan ayaan kala hadlayay bay tiri waxa uu igu celcelinayay iska daa Kajal gabadhan waxa ay soo noqon doontaa qof karti leh oo adag oo cadkeeda la soo baxda hore waxaad igu tiri caruurteena waxaan doonayaa in ay noqdaan caruur middle level ku soo kora haddana waxaad leedahay Niza dalka dibadiisa u dirin aniga ayaa raali ka aabaheedna waxna gaarimayaan haddaba 2017 ayay waxay u direen gabadhooda Niza dalkaasi Singapore si halkaas ugu soo dhameysato waxbarashadooda Kajal ayaa waxay sheegtay arrintan in ay aad uga walacsan tahay aysan ayaduna marna raali ka ahayn lafteeda ayaa mar wax laga weydiiyay waxa ay sheegtay anigu lafteeda maxaa nooga naxayaa Niza lafteeda waxa la diray batri boarding school oo wax ku soo bartay aniga hooyadii waxbay ku soo baratay walaashayna waxbay ku soo baratay iyada oo boarding joogta gabadheeda hadii ay baxdo oo ay Singapore tagto oo boarding wax ku soo bartaan lafteedu waxay ila tahay fikirka aabaheed ayaan ku qabaa oo waxa laga yaabaa inay soo adkaato balse hadii qoftu ay noqoto xaafad joog waxay niga noqonaysaa bay tiri ciyaal maama aan nolol maalmeedkeeda la soo bixi karin haddaba caruur badan oo kamid ah aktarada shirkadda Bollywood ayaa waxa ay sheegtay in loo arko in ay dadkan dhaleen xidiga superstar ka ah shirkadaha filimada sameeya dalkaasi Hindiya xagga amnigana aad ay cabsi ugu abuurtaa taasina waxay tiri waa walwalka waa aan kaga badanahay dhanka Ajay Devgan sababtoo aniga waxaan ahay hooyo oo aniga naaskayga ayay soo nuugtay waana gabadhii aan muddada 9 bilood aniga aan caloosha ku siday ayay Kajal tiri haddaba walwalkan zaidka ee aktaradan caanka ee Kajal ay muujinayso waxa sabab u ah in waalid kasta uusan raali ka ahayn in ubadkiisa dalka dibadooda looga diro walow ayba kuwan ka sii magac dheer yihiin oo la leeyahay Niza Ajay Devgan ayaa dhalay iyo Kajal sidaasna waxa suurtagal ah gaagaysa dalkaasi Singapore ku nooli inay weerar ku soo qaadaan inkastoo Singapore xagga amniyan ay tahay dal aad iyo aad loo adkeeyay dad badan oo magac ku leena caruurtooda ay halkaas u dirtaan si ay wax ugu soo bartaan 26 sano ee ay ku jirtay aktaradan Kajal Devgan waxa ay sheegtay in ay aad u faraxsaneed balse markii gabadheeda laga qaaday ay muruga ay la soo daristay haddaba sidoo kale waxa kamid ah waxyaabaha Kajal la weydiiyay gabadhaada markay waxbarashada soo dhameyso suurtagal miya in ay kamid noqoto atriishooyinka shirkadda Bollywood ka hawlgala oo adiga wadadii aad martay ay marto waxay tiri gabadheedii maalintii ay soo hana qaaday oo socotay shay ay qabsatay waligay uma aanan diidin haday tiraado atriisha ayaan rabaa iyo haday tiraado laadarada ayaan rabaa intaba diyaarayaan walaahi waana la garab taagna inaan ku caawiyo wax kasto ayada hobbigeeda ah mana jecli bay tiri ubadka yararka in waxa ay rabaan laga hor istaago waana farxad iyo kuriimadooda iyo niyadiskooda ayay u tahay in shakhsiga aan niyada laga dilin oo niyada loo dhiso moralita si uu u soo koro moral ahaan iyo jismi ahaanba haddaba Kajal waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay balse u malayn maayo ayay tiri in aan raadkii aniga aan maray ay qaadi doonto oo shaqooyin kale inay qabsanayso ayay ila tahay iyada aabaheed iyo ayada ayaa hore arintaasi uga wada hadlay laakiin wax go'aan oo rasmi ah kama aysan soo bixin walina ilama aysan sheekaysan inay noqon doonto atriisho shirkadda Bollywood ka mid noqonaysa haddaba daawadayaal barnaamijkii aynu kaga hadlaynay aktarada caanka ee Kajal Devgan iyo gabadheeda oo laga kaxeeyay loona diray dalkaasi Singapore walaaca ay ka qabto barnaamijka aynu kaga hadlaynay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa idin daadinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax halka aad ka daawanayseen waa Saxafi Films intaynu barnaamijkan lamid ku kulmayna daawadayaal haddii aadan ka mid ahayn baad ku xiran Saxafi Films fadlan subscribe saar kadibna gambale ka taabasi barnaamijka markuu hawada soo galabo si toos ah kuugu soo dhaco fikirka aad qabtana waxaad nagu la wadaagi kartaa qaybta hoose ee loogu talagalay qoraalka ama afkaarta adiga oo fikirkaaga nagu la wadaagaya inagoo isku duuban oo abaada Saxafi Filmsna waxaanu idin leenahay sida iyo nabad gelyo